بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan kusoo jirnay casharadeenii aynu ku baranaynay xirfadda graphic design gaar ahaan barnaamijka photoshopka khaasatan waxaynu kusoo jirnay casharada aynu kaga hadlaynay tooliska la isticmaalo barnaamijkan marka lagu jiro maanta marka waxaynu qaadan doonaa hadduu ilaah yiraahdo cashar ku saabsan type toolka oo midka ugu muhiimsan ah markay timaado designka sidaad ogtihiin design waliba wuxuu ka kooban yahay qoraal design kasta ha ahaado qoraal uu ku jiraa marka qoraalkaas oo loo yaqaano field gooni ah oo la barto ah oo typography loo yaqaano ayaynu maanta hadduu ilaah yiraahdo cashirkeena ku baran doonaa insha allah marka type toolku marka waa kan noocan uu egyahay marka isaga laftigiisa sidaynu hore usoo sheegnay markaad wuxuu leeyahay fallaadh yareyd markaad fallaadha hoose haddaad ku dhufato si aad soo saarto qoyo hoosaa ku jira bay ka dhigan tahay macnaheedu marka si aad usoo muujisana sidaynu soo sheegnay mouskaad right click dhan kadib way kuu soo bixi doontaa marka ka ugu horeeya oo dhowrka qaybooda ku jira aynu arki doona waxaa weeye waa horizontal type tool vertical type tool vertical type mask tool horizontal type mask tool oo labada laakiinse ugu muhiimsan oo la isticmaali doono waa labadaas waa vertical iyo horizontal labada marka ugu muhiimsan aan isticmaali doono waa horizontalka iyo verticalka labadaas aynu isticmaali doonaa laakiinse marka u horeysa aad ku dhufato calaamadda kuu soo bixi doontaa calaamad noocan oo kale ah marka si aad qoraal u samayso waxaad samayn doontaa click baad ku siin doontaa markaad click siiso dhowr shay baa kuu soo bixi doona macnaha qoraalkan oo loo rabin ay ku qoran tahay baa kuu soo bixi doona macnaheedu ka dhigan qoraalka aad qori doonto sidan buu u ekaan doonaa marka dhowr shayba waynu arki doonaa marka hadduu ilaah yirahdo qoraalka marka sida loo qoro farta sida loo bedelo sizeka qoraalka sida loogu daro sida kalarka looga bedelo midabka waynu arki doonaa intaas baa hadduu ilaah yirahdo maanta cashirkeena aynu ku baran doonaa marka ugu horeysa haddaan iminka aan tigta saaro waxay ka dhigantaa qoraalkii ii qornaaba meesha soo baxaya oo sidaasoo qaabkaasoo kale u ekaanaya marka si qoraalkan waa kii tusaalaha lagu seego marka si aad u bedesho waxaad samayn doontaa highlight baad saari doontaa marka highlight aynu sidaa u saarno waxaynu samayn doonaa halkan sidaynu hore usoo sheegnay option barka dhowr shay baa inooga soo bixi doona halkan khaanadan ugu horeysa oo kale waxaynu ku bedeli doonaa farta nooceeda farta typekeeda aynu ku bedeli doonaa haddaynu farta magaceeda garanayno halkaas aynu ku qori karnaa oo tusaale kale ka ujeedaa fartaas oo qaybaha kala duwan labaa kuu soo bixi doonta tusaale haddaan hadda mid iska doorto semi bold intan ay ku qoran tahay markaynu halkan kasoo doorano farta nooceedii halkan sidoo kale khaanadan kale ku xigta iyadana waxaynu ka dooran doonaa styleka fartu ay yeelan karto faraha way kala duwan yihiin faraha qaarkood baa laga yaabaa inay hal style bas yihiin tusaale kale haddaynu halkan ka dhigno antan haddaynu ka dhigno fartan oo kale waa far bold ah oo ciwaanada iyo waxaas badanka loogu talagalay haddii halkan marka stylekeeda aan tagno fartan waa ujeedaa regular bas ay leedahay marka faruhu way kala duwan yihiin mar walbana far walba waxay ka muhiimsan tahay fartu inta style ay taageerayso ama ay qaadanayso ayaad dooran doontaa marka hadda bobines oo kale haddaan dhahno bobines waa ka fartan weeye iyaduna dhowrkan style bay leedahay oo haddii aynu soo doorano regularkeeda haddaynu doorano noocaas oo kale u soo baxaysaa bay ka dhigan tahay marka haddii farta magaceeda aadan garanayn waxaad samayn doontaa khaanadan yar baad soo furi doontaa fallaadha ayar hoos taagan ayaad soo furi doontaa halkana marka waxaa kaaga soo bixi doona farihii kala duwanaa kolba midka aad rabto aad ka dooran doontaa haddii farta aadan garanaynin farta kolba madii ku qancisa ayaad kasoo dooran doontaa halkaas halkan sidaynu sheegno waa styleka fartu ay taageerayso halkan oo kale khaanadan ku xigta iyadana waxaynu ka dooran doonaa cabirka ay leedahay farteenu ayaynu halkan sidoo kale iyadana ka dooran doonaa haddii aynu samayno tusaale halkan laba qaab waan samayn karnaa si aan cabirka farta u doorno halkan intaynu highlight dhahno tiro waan ku qori karnaa tusaale kale konkan haddaan ka dhiga hadda waa ujeeda way isbedelaysaa aad bay usoo weynaanaysaa haddaan yarayno oon 10 ka dhigno kale hadda way yaraanaysaa iyaduna waa ujeeda saasay u yaraanaysaa haddii marka qoraalka inaad saa ugu qorto aadan rabin halkan aad iyadana sidoo kale intaad soo furto aad halkan ka dooran kartaa kolba cabirkaad rabto halkan laakiin qaybtan 72 ugu dambayso oo intaasay ku xadidan tahay haddii marka aadan halkaas aadan rabin qaabka kaloo saddexaad oo farta cabirkeeda aad u kordhin karta ama u yareyn kartaa waxaa weeye inaad halkan markaan fallaadha meeshan tiida weyn iyo tiida yar ay ku qoran tahay markaan aan saa u saaro mouska waa ujeedaa cursorka wuu isbedelayaa marka fallaadh baa soo baxaysa fallaadhan haddii aan dhankan midig u jiido way weynaanaysaa oo fartayda waa ujeedaa way soo butac way soo noqonaysaa haddii laakiin farta dhankan kale aan bidix aan u jiidno way sii yaraanaysaa marba marka kasi dambaysa ayay sii yaraanaysaa marka qaabkaasna waad samayn kartaa si aad farta cabirkeeda ama u weynayso ama u yarayso maxaa si aad u fahanta dhanka midig hadaad waddo waxay ka dhigan tahay waad weynaysaa maadaama tiidii weynay xaggan taalo haddaad dhanka bidix wadana waad yaraynaysaa bay ka dhigan tahay waa ujeedaa halkan oo kale paragraafka waan aadi doonaa qaybtan marka halkan iyadoo farta midabkeeda ayaynu ka dooranayna markaas tusaale haddaynu casaan ka dhigno waa ujeedaa casaankaas qaabkaasu noqonaya hadaynu ka bedelno oo noocaas oo kale ka dhigno hadaynu buluug ka dhigno waanu bedelnaba gebigeedaba marka horta midabkeedii baad halkan iyadana kasoo dooranaysaa laakiin
mar walba oo isbedeladan iyo waxaan ku samaynayso midabka farta aad bedelaysahay waa inuu mar walba ku ahaadaa highlight. mar walba farta midabkeeda ama wax aad ka bedel rabto ama cabirkeeda ku darayso ama farta aad bedelayso waa in mar walba ay ku doornaato. tusaale kale hadda hadaynu dhahno mar walba oo aan wax ka bedel ku samaynayno fartan ama aan kalar ka bedelayno ama cabirka aan ka bedelayno ama farta nooceeda aan bedelayno waa inaynu mar walba highlight saarnaa oo si ay inoogu suurta gasho si aynu u awoodi karno inaynu wax ka bedel ku samayno. haddii iminka tusaale iyadoo fartan sidana ima soo baxaysa oo farta typeskeedii oo marka waa inaga hore u sheegnay shay walba markaad wax ka bedel ku samaynayso marka shay walba oo aad wax bedel ku samaynaysaa waa inuu kugu dooran yahay. marka qaab inuu kugu dooran yahay in kale aad aragtana tusaale hadda sidan kugu dooran yahay laakiin still wax kuma bedeli karo marka farta waa inaan highlight saarnaa. highlight saa u saarto double click waad samayn kartaa. qaabka kalood highlight u samayn karta waxaa waaye adigoo farta markaas u doorato halkan layerska ay kaaga soo baxdo halka tiida halkan maaha halka tiida ay ku qoran tahay ayaad double click siin kartaa. iyadana sidoo kale waxay kuu doori doontaa highlight bay kuu saari doontaa. kadib waxaad awoodi doontaa inaad wax ka bedel ku samayso aad fartaada ama midabka ka bedesho cabirka ku darto marka wax badan baad awoodi doontaa. sidoo kale farta typekeeda midabkeeda farta nooceeda inaad bedesho. tusaale kale haddaan tan ka dhigana hadda fartii marka waka way isbedelaysaa. hadaynu typeka stylekeeda sii bedelno weliba oo ka dhigno semi bold iyadana qaabkaas ay nooga soo bixi doontaa. marka qaabka kale oo saddexaad haddaynu aragno qaabka aad usoo weyneyn kartid farta waxaad samayn doontaa intaad markaad doorato selection saartid kadib intaad halkan qabato geeska aad altisa ula soo jeedi doontaa. iyadana sidoo kale way ku weynaan doontaa laakiinse alti markaas oo kale waa inaad la qabataa si ay markaasi isla ay kugu soo weynaato. marka farta oo kale labadan qaybood hadda iminka qaybtan wax ka bedel waad ku samayn kartaa oo iyada tusaale kale midabka aan ka bedelno waxaanu samaynaynaa oo kale midabkeenaas oo kale aan doorano aan saarno sidoo kale stylekeeda aan ka dhigno regular. markaad waa ujeedaa labadii far isku mid maaha tani way cayilan tahay tanna sidoo kale caatay tahay. markaas oo kale intii waad samayn kartaa qoraalka hadba intii highlightka kuu saaran yahay selectionka. tusaale haddaan hadda wada doorto wax ka bedelku labadooda wuu ku dhacaya laakiin haddaan qaybtan keliya aan doorto intaas ayaa aan wax ka bedel ku samayn karaa oo midabka ka bedeli karaa oo aan farta midabkeeda cabirkeeda bedeli karaa typekeeda aan bedeli karaa kalarkeeda aan farta nooceeda aan halkan ka bedeli karaa. tusaale haddaan hadda bedelno oo ka dhigno anton aan ka dhigno marka waa ujeedaa iyadii keliya baa isbedelaysa. hadaynu sii bedelno weliba aan ka dhigno happiness aan ka dhigno kale iyadana waa ujeedaa iyadaa isbedelaysa. marka hadba shayga aad wax ka bedel ku samaynayso waa inuu kuu dooran yahay. marka way wada socdaan qoraalkani laakiin macnaheedu maaha qayb keliya labadan qaybood mid kamid a wax kama bedel kuma samayn kari waayeysid. monteserid baan dooranaynaa. marka hadda qaybtan dambe waxaan rabnaa inaan ka dhigno qaybta dambe waxaan u baahanahay inaan italic ka dhigno oo jiif ah. halkan aan kasoo dooran doonaa marka waxaan oranaynaa italic baynu raadinaynaa xaggan ka raadinaynaa. marka bold italic waad ka dhigi kartaa medium italicna waad ka dhigi kartaa. hadda medium italic baan ka dhigaynaa marka waa ujeedaa qaabkaas jiifkaas qaabka jiifka way inoogu soo baxday. marka qaybtani way yaryar tahay haddii marka sidaynu farta waaweyn uga dhignaa iyadana highlight garanaynaa. mar kale waxaynu samaynaynaa marka halkan baynu tagay si aan fartan waaweyn uga dhigno inaynu halkan tagno ay ku qoran tahay character kadib markaynu halkaa tagno calaamadaas aan kusii dhufano kadib waa ujeedaa farteeni waaweyn bay noqonaysaa. haddii aynu sideedii ku celino sidaasay noqonaysaa. marka qaabkaasaynu wax u bedeli karnaa. marka qaab kale oo aan arkayna waxaa weeye qaybtaas marka waa qaybtii horizontalka ahayd wey oo waxaad rabtaa ku qori kartid. hadaynu soo furno marka qaybta verticalku iyadana wax kale maaha. iyadana sidoo kale markaad tig ku siiso halkaas bay kuu soo bixi doontaa qaab istaaga ama vertical ayay wax kugu qori doontaa. tusaale hadda midabka aynu ka bedelno maadaama ay madow tahay haddii baan ka dhigaynaa kadib halkana waxaan ku qoraynaa. waad u baahantay inaad boos ka soo horjeedana move toolkaad ku noqon doontaa kadib aad qaabkan soo jeedi doontaa. markaan soo yarweyneyno kadib markii aan wax ku qorno waxaan samaynayna waan dhahnay halkan double click waan ku oran karnaa qaabkan halkan waan ku oran karnaa. laakiin haddii aan wax qoras dhahno
waad ujeedaa waxba inooma qormayo marka waayo waxba ma doorna kadib marka highlight aan saarno kan aan hadda qorno kan xaggan aan u jeedino marka waa ujeeda waa isku midkii un waa iyadii isbedelka intii aad ku sameynaysay unbaad ku samayn kartaa iyadana su'aalo kale hadeed qaybtan u baahan tahay inaad highlight saarto qaybtan keliya baad rabtaa iyadana sidoo kale qaabkaas ayaad wax ugu bedeli kartaa midab typeka farta aynu bedelno ala bold baynu ka dhigaynaa midabkeedana waan bedelaynaa qaybta kalena italic baan ka dhigaynaa mar walba intaad wax ku rabto inaad isbedel ku samayso waa inay highlight kuu saaran tahay waa inay saynu soo sheegnay marka italic aynu ka dhigno iyadana waliba italic light aynu kasii dhigno marka waa ujeedaa qaabkaas ay noo noqotay marka qaabkaas weye qaabka oo kale isaguna loo isticmaalo type toolka verticalka ama istaaga mararka qaarkood noocan inaad ku aragtaa laga yaabo meelahaas oo kale kadib marka farta dhowrka qaabba waad u samayn kartaa haddii mararka qaarkood type toolkani uu kaa maqan yahay halkan kan oo kale oo character kaa maqan yahay waxaad samayn doontaa window baad aadi doontaa kadib halkan baad kasoo dooran doontaa aad character ka raadin doontaa marka waa kan hadda maadaama uu yaalla halkaas tig buu saaran yahay marka wuu soo bixi doonaa marka hadda laakiin meeshaas uu noogu jiray kadib meeshiisi baan ku libcelinaa markaad ku libcelinaysa afargees markuu saaf ugu soo baxo waa inaad ka saartaa marka hadda wuu inoo yaallaa innaga halkaas uu yaallaa uma baahna marka inaan markale soo saarno marka qaabka kale oo qoraalka mararka qaarkood qaab kale typeka u isticmaali karto waxaa weeye shay waxaad rabtaa inaad waxoogaa qoraal la paragraph aad qorto kadib markaad qoraalka soo doorato waxaad samayn doontaa intaad waxba klik ku siin marka hore si aynu qoraal u qorno klik baan ku siinaynay markaad waxaan u baahannahay qoraalkeena inuu sinnaado kadib si uu sinnaado oo uu meesha safe area aynu samaysano uuna ka dhex bixin waxaan samayn doonaa intaynu soo jiidno aynu soo samaynaynaa intaas aan ku samaynay intan hadda marka aynu sawirnay qoraalkeenu kama dhex bixi doono marka oo jeeda halkaasu ku dhex jiri doona marka qoraalka sidii aad samayn jirtay unbaad wax walba kabedel ugu samayn doontaa tusaale hadda maadaama la arkayna aynu caddaan ka dhigno caddaan markaan ka dhigno haddana waxaan samayn doonaa sidoo kale inaan farta aan 12 ka dhigno marka regular baan ka dhignaa haddana sidoo kale farta stylekeeda waan bedelaynaa halkan haddaynu rabno xataa magaceeda waynu bedelaynaa bobines baan ka dhigaynaa kadib marka intan uu isku jiro haddii aad rabto inaad wax kabedel ku samayso typekii baad soo dooran bayn dhahnay halkan baad wax kabedel wax walba ku samayn doontaa marka halkan xarfuhu intay isku jiraan haddaan raba inaad samayso meeshan halkan qaybtan ayaa waxaad samayn doontaa intaad soo furto letter spacingka ayaad eber ka dhigi doontaa marka hadda waxay isku jirsan doonaan space caadiya halkan oo kale haddii aad rabto inaad waxoogaa spaceka ay isku jiraan kan inaad yar jiido ama qoraalka aad wax yar dhexaysiiso kanaad ka dooran doontaa marka mar walba way isku sii dhawaan doonaan hadaad rabto inaad marka isku yar dhawayso halkan ayaad kasoo dooran doontaa marka mar walbood sii waxayso waa mar walba ay sii kala fogaanaya numberka aad sii weynayso mar walbood numberka sii yaraysaa waa mar walba ay isku soo dhawaan doonaan tusaalada hadaynu saa ka dhigno cidhiidhi bay isku noqonaysaa way isdhexgelayaan marka auto ka dhigo haddii aad rabto inaad waxoogaa aad yar kala fogeyso ilaa 12 aan ka dhigno marka waa ujeeda qaabkaasuu noogu noqonaya haddii laakiinse auto aan ka dhigno sidii caadiga ahayd buu noqonayaa intay isku jireen bay isku jirsanayaan caadi ahaan normally marka halkan oo kale waa intii aan samaynayna kadib haddaad rabto inaad styling ka dhigto farta halkaasaad jiif aad ka dhigi doontaa haddaad ka qaadaysid ood wada waaweynayso halkaasaad taaban doontaa iyadana wada waaweyn buu noqon doonaa haddii aad qaybtooda rabto inaad yaryarayso halkaan baad iyadana ka qaadi doontaa kan oo kale wayna arki doonaa qayb kale aan ku tusi doonaa marka halkan iyadana kalarka midabkeedii fartii baad ka bedeli doontaa typeka oo halkaana waad samayn kartaa halkana waad samayn kartaa labada qaabba halkan isla sidoo kale waxaa kaaga soo bixi doonaa fartii aad typekeeda ka bedeli kartid halkan stylekeedii farta marka ay leedahay haddii taageerayso qaybahan marka paragraphka marka inahaas isagoo marka ugu muhiimsan labada qaybood laakiin waan arki doonaa halkan oo kale paragraphka isagoo aad aragtay haddii waxaad u baahan tahay iminka centerka ay ka siman yihiin qoraalkeenani haddaynu rabna inay laftiga ka simnaan halkaas aynu taaban doonaa kadib align lefti baa laga dhigi doonaa xaggaasay ka simnaan doonaa haddii aad u baahan tahay inay right ka simnaan halkaasaad samayn doontaa dhanka midig bay ka siman yihiin halkan kalena way kala dhaadheer yihiin haddii aad u baahan tahay maxaa la yihahdaa inaad qoraal justify ka dhigto laakiinse halka u dambayso oo leftiga ay ku dhammaado qoraalku saasaa samayn doontaa marka imika waa ujeedaa si waxoogaa aan u yarayna kan aad u fahanto
marka waa kaasa laftigaa laga samey hadda justify way dhinacan geesahan kaloo dhan way ka sameyn yihiin laakiin xaggan ay laftigu ku dhamaado qoraalkii haddii right aad rabto inaad ku dhamaado waxaad samayn doontaa iyadana kaasaad odhan doontaa anaa qoraalkaaga inta u dambeysa laga wada halka markaa dhanka kaloo dhan waa laga samey laakiin qoraalku wuxuu ku dhamaan doonaa dhanka midig sadarka u dambeeyay xaggan midig buu ku dhamaan doonaa haddii aad u baahanta inuu dhexda ku dhamaado waa kaasa qaybtii dhexe imika iman doontaa marka paragraafkan qaabkaasa loo isticmaala haddii halka justify aad dhahdo anaha dhammaantood waa all waa justify baa laga dhigayaa xarfuhu markaas haddii markaas uusan qoraal fara badan uusan ku hayn xarfuhu kala jijiidi doonaa marka tusaale hadda kan aan ka dhigno waa ujeedaa sadarkii u dambeeyey xaggan uu kala samay xaggan midigna uu kala samay qaybihii u dhexeeyey marka wuu kala fofoogay marka justifyna qaabkaasaa loo isticmaalaa maxaad u baahanta mararka qaarkood xisaabtii waxaas marka la qorayo to the power of two marka la qorayo hadaynu soo qoran iminka two bay noqon doontaa laakiin inagu ma rabno two inay noqoto waxaan rabnaa inaan to the power of two noqoto oo labadani ay jibaar noqoto ay kor ka fuusho kadib marka waxaan samayn doonaa si aad u fahanto soo yar dhaweeye marka tuudan dambe ayaan haylaad saaraynaa kadib waxaynu ku noqonaynaa halkii characterkii meeshan waxaa ujeedaa laba shay baa ku yaala halkan waxaa loo yaqaanaa superscript halka kan kale superscript marka waxa weeye korkuu saari doona labadan iminka hadda inoo haylaad garaysan korkaasay fuuli doontaa marka to the power of two hadda iminka insaa loo qoro waad garanaysaa kale haddaan tig saarno soo dhaweyno marka waa ujeeda hadda to the power of two buu noqday haddii marka aynu sameyno subscript baa jira iyadana mid loo yaqaano isaguna waa hoosta hoose u geenayaa ka dhiganta halkan hoose ayuu geenayaa tusaaloo kale hadda subscriptkiisaan u fahnay isagana waxaan samayn doonaa hydroxide baan qori doonaa H2O marka hydrogen qaabkan inuu qoran waad ogtahay toodan marka hoosta ay taalo mar walba heshta hoosteeda ay taalo marka toodaas aynu qaban doonaa highlight saari doonaa kadib waxaynu aadi doonaa halkan character subscript baan dhigi doonaa marka hydroxide qaabkaas inoo qabo waad aragtay hoosta ay taalo marka tool ay u dhaxaysa labadaas marka cashirkeeni aynu ku baranaynay type toolka oo aad muhiim u ah halkaas aynu ku ekeyn doonaa maanta hadduu ilaah yidhahdo waxyaabihii kale cashiradeenna soo socda aynu ku arki doonaa insha allah khayr badan baan idin rajayna subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk